السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaanu ku qabanaynaa shir jaraa'id annagoo odayaal ah uu ka mid yahay Suldaan Siciid Yuusuf Xaashi Ducaale iyo anigoo ah Jiif Caaqil Siciid Cawl Cabdulle iyo xubno kale oo waxgaradka oo guurtida reerka ah waxaanu ka hadlaynaa oo jecelahay inaanu ka hadalno qadiyada nabadeed iyo dhibaatada ka jirta gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceelafan guud ahaan gobolka Sanaag oo dhan waxaanu ka qabno waxaanu nahay madax dhaqameedkii dadkaas waxaanu nahay dadkii ka mas'uulka ahaa waxaanu nahay dadkii xogogaalka ahaa waxaanu doonaynaa waxa weeye qadiyada jirta inaanu Soomaaliland oo dhan u bayaamino haday xukuumad tahay iyo haday beelo tahayba wax waliba base bay leeyahay hawshaas waxay lahayd ayaan salbay lahayd unug bay lahayd waxay ahayd biciide iyo garxajis bari bay ahayd shirweynihii ugu dambeeyay la isu dhaariyay xaaladdu waxa weeye xaalad ballaaran oo hadii allaba ku reen dhul leh oo siyaasad leh oo dil leh oo hadii allaba ku reen dhaawac leh taas ayaan doonaynaa inaanu cadayno ummadda Soomaaliland meel kasta ay joogtaan ba aanu cadayno mowqifka iyaga iyo waxa dadka iyagu ka qabo awshaas waxa weeye dhowr jeer bay furantay dhowr jeer bay hadii allaba ku urtay murkacatay waxaan doonaynaa hadii maanta la gelayo in si ballaaran hadii allaba ku reey loo wada galo in hadii allaba ku reeyay sidii goob platformkii hore hadii allaba ku reey ahaa biciide iyo garxajis bari inaan waxaan ahayn oo arrinkaas ku suuroobaya aanay jirin baanu cadaynaynaa oo aanay suuragal ahayn hadii allaba ku reey in loo wada dhamaado in arrinka biciide u wada dhamaado aqoonyahan haduu leeyahay madax dhaqameed haduu leeyahay siyaasi haduu leeyahay culimada haduu leeyahay mid ariga la jooga haduu leeyahay in arrinka biciide u wada dhamaado hadaan biciide u dhamaana aan waxba ka soconaynin in arrinku uu ahaado halkiisii hore ee garxajis bari iyo biciide waayo maalin ba hadii lug la furo wax ka dhamaanaya ma jiraan xukuumadda waxaan leenahay waxa bilowdeen cadaadis aan dadkayga kula kacdeen oo xabsi leh oo guryaha kala guubaxaysan oo kii hadlaba xidhaysan wallahi baanay nabad sida ugu imanaynin waana ku ballaarinaysan dadka haysataan ee Burco iyo Hargeysa iyo Ceelafan ka qabqabsateenna waxaanu leenahay soo daaya waayo ma haysan karaysaan suuragal maaha annaga ka mas'uula waa dadka yagii dulmi lama ogolin wallahi dhibaatada ballaarinaysan oo aydan u soo dhaweynayn oo aan wax la muumin kuma cadmiisado wallaan madaxa ka goyn war xarig waxa ma shaqaysa annaga nabadda hayna annaga tolkayaga inta kala jibinayna oo la kala kaadiya ma hadii dagaalku biciide gaaro oo biciide u dhamaado wallahi baan Soomaaliland isu soconaynin waana kala jibinayna ehelkayo anigu waxaan ka mid ahay oo ninka halkaan ka hadlaya oo Siciid Cawla ragal biciide ku eedaynayo inuu biciide kala jibiyay awaana runtud annaga kala jibinaynay annaga diidanayna israacaan hadii si biciide israaco iyo biciide dagaal gelino waxa weeye wallahi baan Soomaaliland waxba uga qabanaynin ee waxaan leenahay baasha dhulka dhiga shacbigeena cadaadinta ka daaya dawdigdigta ka daaya waxa weeye waan isu dhamaanaynaa talab guud baanu nabadda ku gelaynaa wax walba waa ku dhamaynaynaa wax cafis la yiraahdo xukuumadda afidin kartaana ma jirto cidna ma cafi kartaan cidna waxba soo ma qaban kartaan waa been baa la isu sheegaysaan oo iska iibinaysaan gaar xajis oo ama habariyoonis cidda cafiska doonayso inay buuxiyo weydiinayso waxaan u malaynayaa inuu yahay ninkii reer Samatar Burco Ceelafan lagu dilay nin dadkiisii la laayay baa cafiya hadii ninkii cafis uga weydiinaysaan ragii u geystay waa meesheeda laakiin hadaa cafis doonaysaan oo cafis ka ayo nabad laga hadlaayo meeshay taalo waa la garanayaa ina Xaaji Nuur waxaan leeyahay maayir ina Xaaji Nuur waxaad maalintii dhaweeytay waxaan doonayaa wax ka sareeya sharciga maalintii goof baad ka fiirsan lahayd maalintii goof
aad jamhadda ku dhawaaqday aad shirka jaraa'id qabatay hargeysa bari hogaaminaysay baad ka fiirsan lahayd maanta waynu ku wada xisaabtamaynaa geedka hoostiisaynu isugu imanaynaa waxa weeye nabad aanan u dhammayn waxa weeye haddii allaba kuu roon yahay ma soconayso dowladdana waxaan aad iyo aad uga codsanayaa in la sii daayo dadka xubnaha beesha ka tirsan ee madax dhaqameedka leh ee siyaasiyiinta leh ee mutacalimiinta leh ee wariyaasha leh sii daaya baan dileenahay war nabadda annagaa ku fadhiina war habeen lama hayn kartaan war wallaahi gabagabinaya nabadda diyaar baanu nahay waa u taagannahay laakiin nabad sideeda ku timaado oo wax walba laga wada hadlay oo gobolka Sanaag lagaga wada hadlay baanu doonaynaa waxa weeye qoysas hoose suuragal kuma aha nabadi inay ka dhacdo gobolka Sanaag waayo wax isku xidhan weeye dhacdooyin ballaaran weeye waxa weeye wayso suran waxa weeye war arrin Idris iyo Bohogaar uga wada hadlaan ma jirto ma karamaan ba Idris iyo Boho ka wada hadlayaan ma dhacdadii Ceelif ma Idris iyo Bohogaar uga wada hadli karaan waxa weeye baciida waa baciide wala urjif hooyadii ku gowracan man ceergabaan ka maqlaayay waxaan leeyahay war Boho waa baciide وهو بعيدة هدي اللي بقول سعد يونس إنه هو كرحشس بري وعوي والله سب اللارن أو هدي اللي بقول رويا يعني هذا الكبدينه وعوي سب اللارن ولو وده اللي هيبان نبض اللوجو وده هطليه هذه يا نوان السلام يا